Dowladda Japan ayaa soo saartay gawaari laga dhex sameeyay masaajidada kuwaas oo dhex wareegi doona magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Baabuurtan masaajidada ah dowladda Japan waxay ugu talagashay inay ku tukadaan dadka ka soo qaybgalaya ciyaaraha Olombikada marka la gaaro sanadda 2020ka. Talaabadan ay qaaday dowladda Japan ayaa qayb ka ah diyaargarow ay ugu jirto martigelinta ciyaaraha Olombikada sanadda 2020ka kuwaas oo lagu qaban doono magaalada Tokyo ee caasimadda waddankaasi Japan. Yashuna Inawa oo ka mid ah saraakiisha u xilsaaran masaajidda wareega ayaa warbaahinta u sheegay in arintani ay timi kadib markii ay timi inay ka cabsadaan inay yaraadaan masaajidda waddankaasi ku yaala. Master Inawa ayaa intaasi ku daray in sidoo kale masaajidkan loogu talagalay inay ku tukadaan dadka martida ah si aysan waqti badan uga bixin goobaha ay ku cibaadaystaan intay ku sugan yihiin waddanka Japan. Baabuurtan ayaa leh qaybo lagu weesaysto markasta ay diyaar ku yihiin biyihii weesada waxaana hadda socota tijaabada lagu sameynayo qaybaha kala duwan ee baabuurtan masaajidda laga dul sameeyay. Baabuurtan ayaa xukuumadda Tokyo waxay ugu talagashay inay markasta aad u baahato aad hesho waxayna yaalin goob kasta oo ay ka fog yihiin masaajidda iyo hareeraha wadooyinka. Dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Japan ayaa dhankooda bogaadiyay talaabadan cusub ay qaaday dowladda Japan iyo sida ay uga go'an tahay martiqaadka muslimiinta dalkeeda ku soo food leh marka la gaaro sanadda 2020ka ee xilliga loo madalsan yahay inay dalkaasi u martigeliyo ciyaaraha Olombikada. Xamse Kaafi Axmed, wararka telefishinka caalamiga GBC.